إنا لله وإنا إليه راجعون. runtii waxa xamar ka socdo waa wax laga naxo, waa wax laga walwalo, waa wax qof kastoo damiir ku jirto dhibayso. safaran ku jirnay magaalo kana imaanay oo muxaadarooyin u soo baxnay. markaan shalay arkay newska, markaan arkay breaking newska ama khabar caajil jazeera markaan ku arkay, wallahi email ligu dhuftay ahaan waa naxay. waxaan isdhahay dadkii caruurtooda ka kaxeeyay wadamada gaalada oo xagga geeyay rabeen wadanka inay wax ku soo baraan, wadanka soo jeclaysiiyaan, markuu xagga tagay haddii qaraxaas lagu sameeyo cunugaas yaroo miskiinka aan dembi lahayn, ma kula tahay mar kale Soomaaliya inuu magaceeda xataa maqlaayo? ma kula tahay? dadka waxaan qarxinayo ama waxaan ka dambeeyo, waxaan rabaa inaan dhaho muslim naatin shakiyaaba igaga jiray caqli ma leedihiin. waxaan la yaabaa runtii qof inuu qori soo qaato ama bamba soo xirto dad masaakiin oo meel iska joogo inuu u soo galo, raba inuu qarxiyo, hadhowna dhahayo ilaahan ugu dhawaana oo diin waaye dhahayo. ma idinla tahay waxaas inay diinka tahay? shacbiga Soomaali shacbi muslim waaye, abban canjadu muslim yahay. waxaan meelay diinta islaamka aga qoran tahay ma aragteen? nimankan marka mujrimiinta ah oo dibadana laga soo geliyay waa inaan iska qabanno. dowladda waa inay qabato, dowlad kaligeedna wax ma qabanayso. shacbiga inuu istaaga waaye, mujrimiintan in loo wada istaaga waa hal. waxaan idin sheegaa wallaahi billaahi tallaahi niman gaalaa caawinayo muslimnimayna sheeganayn. والله هبكن تيكا كيسن هبكن والوكينو لعقنا والوكينيسي ودن كاس بربريان دad كان الله نغا قبطو دولك الله لو ودا غوغوي dhamaantooda. waxaan rabaa inaan u duceeyo dadka meesha ku dhintay inuu Ilaahay u naxariisto. dadkii laga dhintayna waxaan rabaa inaan tacsiyo u diro oo aan dhaho inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. hal wax ugu qofkan waa dhiman lahaa maalintiisa maalin looguma daraayo, ama nin mujrim oo afduuban ha qarxiyo, ama gaari accident ha ku dhinto, ama kansar ha ku dhinto, maalintuu Ilaahay ugu talagalay unbuu dhimana. qof maalintiisa maalin loogu daraayo ma lahan. waxaan waa un sabab waaye. maalintiisa qof maalin loogu daraayo haba yaraatee ma jirto. waxaa laga yaabaa saan inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala shahiid uu aqbalaa laga yaabaa. ilaahayna waxaan u weydiinaa gacan ka qaldanoo mujrimiina dileene dadkaas meesha ku dhintay inuu Ilaahay u aqbalo, shuhada u aqbalo, idinkana sabar iimaan Allah idin siiyo. dadka dhaawaca ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo. waxaan dhihi lahaa dadkaas dhaawacane dowladda inay dadkaas caawiso oo la daaweeyo. dhibka jira waxaa waaye sometimes qofka dhintay wuuba dhintayba Ilaahay u naxariisto. qofka dhaawaca mana dhimanin mana noolo, dowladdiina ma caawinayso, faamilkiisina waxay ku daaweeyaan ma hayaan. marka waxaan dhihi lahaa dowladda adiga meesha maanta dowladka ah, ummadda Soomaalida adiga mas'uulka ah, waxaa loo baahan yahay qofkan miskiinka adigoona qabiilo u fiirinaynin, laandheera laangaab aan u fiirinaynin, 4.5 aadan u fiirinaynin. waxaa loo baahan yahay dadkaas masaakiinta inaan caawino. dadka businessleyda ayagana sidoo kale faamilada ha laga caawiyo laga dhintay. nin dhana waxaa la faamil inuu u soo adeegayay ama u shaqeynayay oo asiga dhintay, faamiladaas ha la caawiyo. ugu dambeyntii Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa weli dadkaas meesha ku jiro ayagoo nool in la soo qabto, maxkamad la saaro, cuquubaday mudan yihiin la saaro. dad mujrimiin ah waaye. laba waaba bakhtisayba, waa dhimatay madaawa, laba waaba bakhtisay, ayaga isdili intixaaray sameeyeen, ayaga bakhti labadaas kama hadlooy. dadka meesha ku jiro Ilaahay waxaan weydiinaa ayagoo nool in la soo qabto, sidii ciqaabta inta qofay dileen ciqaabteeda say u arkaan adduunyo intaan aakhira la gaarin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiinaa ciidamada meesha joogtaan waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo. inta wax qaban kartaan qabta, nimankaasna fara kulal ku qabta, nimankaas maxkamad ha la keeno. sidoo kale mujrimiin ma noqonayno, waa la qabanaa, maxkamaa la keenaa. even though qofkii qof dili waa la dilaa, laakiin maxkamaan keenaynaa saan u sheegno Soomaalida inay muslimiin yihiin ee cadaala yihiin aan rabnaa inaan barno.